caawa xanaaqsana ama waa murugaysana adhoon saan u sheego muuqaala la ii soo diray xilligan anoo socda haddaa aragtiinna xaaladda okay maaha. muuqaalka la ii soo diray intaan idinla wadaagin ka hor waxaan rabaa horta inaan sheeko yar idiin sheego. sheekada muuqaalkuu quseeya laakiin annagay nagu dhacday, gurigeennii ka dhacday. gabar noo adeegi jirtay berigii aan yaraan ka hadlayaa. hooyaday ganacsatay ahayd, subaxii baxda habeenkii soo noqota. gabadhan subaxii noo timaadaa galabkii naga tagtaa. anaa marka joogo, anigana hooyaday gacan yar camalaan u ahaa weligeyba. waxaa dhacday marka quraacda markay kariso weel ay ku shubtaa xoogaa, waxay leedahay cuntadayda waaye waa qaadanaa ma cunaayo. duhurka markii la gaara sidoo kale samaysaa, meel ay ku shubtaa. habeenkii ma nala joogto, galabkii inta cashada boobsiisa 4 o'clock ay naga tagtaa, haddana meel ay ku shubtaa. galab walba gabadhaas waxay sii hinjisaa 2 bac oo alaaba. aniga marka waa ogaa cuntada ay leedahay waa qaadaa, cashadayda waa iyo quraacdayda waa already jikaday ku dhex cunto. aniga waa ogaa ilaa ugu dambeyn aan dhaho kaalay aniga ila cuntana qaado. aniga waxaan u sameynaya waa ogaa caruuray kasoo tagtay, hooyo waay. dadka marka wax xadaaya ama wax qiyaamaya inta badan dhibaataa u geysata, qaarkoodna waa mental health issue. wadamadan hadda aan joogno ilmaha yararka xataa markay wax xadaan iskuulka la ogaado counselina loo diraa. dadka qaar problem maskixiina u geysa inay wax sameeyaan khalad noocaasa. sheekadeennu mental health maaha. gabadhii waxay samaysaa idiin sheegaa adeegii marka bisha loogu talagal hooyaday waxay aragtay inay dhamaanayo intaan bisha la gaarin. ani waa fahmay marka mararka qaar si zaa'idna way u karisaa cuntada, iyadoo ceyrina way qaataa. soo waxaan sameeyey furan albaabka u sameeyey cuntada waa u qayaasa xoogaa fiicanaan kariyaa, tanna cunaan dhahaa tanna qaado. waxaan u sameynaya marka inay caruurteeda wax u geysato. waxay awood inay ii sheegto xataa i weydiiso. dadka qaar tabardariya horta waxa u geysa dhibka. ugu dambeyn gabadhii way xanuunsatay. ha xanuunsata ma xume hooyey. aniga waxaan isku daynay inaan maadaama aysan bil imaanin aan aadno. hooyaday maanta way noosha, way ila joogtaa, markhaatina way ii noqonaysaa. gurigeeda ugu tagnay. markaan guriga ugu tagnay, guri yaroo iska doqoshay deganeed, caruurtii aan meesha fadhiday. iyada ma sugaynin reerkana kusoo salaamin doon. hooyadeena qof iska mashquulay ahayd oo ganacsataa. albaabka markaan ka galnay gabadhi way naxday. aniga iyo hooyo waa is eegnay, ilaan guriga qolka dhan waxa ugu wareegsan daahyadeennii. gooray qaada ma aqaano, qof dareensiisa ma. labadeenna danaheenaan ka raacanay. hooyo kheyr allah sii, qof naxariis badan ay ahayd, lacagay siisay, ilaahay ku caafiyo tir way iska baxday. aniga marka mararka qaar waxa isdiidsiisa ma jiraan. waxaan iska dhaadhiciyey gabadhaa saas ugu rooneyd dah ma qaadanaysa goorbe ama isu egyihiin may kuwiina amay ahayn. daahidan marka ma ahayn daahyo aan suuqa kasoo gaday, daahyo sacuudi beri hore laga keeno. marmar aan qolka isaga xirto ahaa, laakiin waa old wuxuu ahaa daahyadii hore. waa soo orday gurigaan imid, sanduuqi fur hal xaba iguma jiro. maalinkaasna waa saamaxay. maanta aan idinla hadlayna waa saamaxay. sheekaan ku keenay sababtaan idinkugu sheegay. horta gabadhaa way dhimatay, allah u naxariisto, kama kicinba. baahida dadka dhibaato xoog leh u geysataa. faqriga wax walba asaa aabay hooyo ah, xumahow dhan asaa aabbow ah. gabadhaan markay la arka waxa lagu samaynayo muuqaalkaas I don't know, qofku dhibi waayo ma aqaano, wax ka qaldan. anigu i dhibay, aad u ii xanuunjiye. gabadhaa jirkeedaa la dhaawacay oo waa la garaacay. kow, maskaxdeedaa la dhaawacay, caayaa nafta looga qaaday. markii saddexaadna sharafkeedaa la dhaawacay oo social mediaha la keenay. yaa u baneeyay intaas waxa qiyaasii adoon mee u tahay. adoonsi xitaa lama ogola. yaa u baneeyay inay intaasoo dhibaata u geystaan. xitaa hadday ogaadeen, hadday adeegto u ahayd iyo hadday si kale kusoo gashay ama dhar u dhaqaysa, iyagaa yaqaana. xitaa hadday dhacda inay xoolahaas ama waxay ku nabaayaan gabadha ama ay runtahayba ay qaaday, xaq uma laha. sharciyaa jira. bini aadamka sidiisaba sharciga ku kala baxa. sharciga dunida haddii la waayo kii aakhira ku kala bixi kara. ilaahay bisa wax xukumi kara oo ciqaabi kara. adiga bini aadan yaa waa tahay. yaa kuu baneeyay inaad garaacdo gabadhaas. muuqaalkan fadlan cidii taqaana naagta ha u geeyaan. yaa kuu baneeyay gabadhaa jirkeeda inaad garaacdo. yaa kuu baneeyay inaad saas u abiyuusto. wax walbo iga maqan adaa qaaday ku tiri. hadda waa shakiya ma hubta xataa. gabdhaha adeegtooyinka ka Soomaaliya hadda ka horna waa ka hadlay. cuqubaan ka galaynaa.
وليجاني الله إنما نصندونه سببت وحكي لماها سوماليا وحكي جرى الدونسي ضدبان maxaa yeelay qof bini aadan saakay gurigaaga intuu soo galay ama seexdayba noloshiisii dhan iyo waqtigiisii meesha ku gabay ee adiga ku dhaqay ku nadiifiyay ku kariyay bishii dhan $50 la siiya kan ugu badan 100 siiya 100kaas ama 50kaas ani waxa dhici karta maalin inaan cuno on maqaaxi ku cuno markaan Soomaaliya tago hadda ogow yaa nolosha say qaali u tahay wadakaas soddon maalmood gabadhi 50ka la siinay haday wax yar u ka qaato jinniya kugu dhacay adduunka soo rogaysa ما أودي وحي لقى قاتي إنها تكسبرتيه محا أديك تكوجي إنها فهمة أبا هنا سومالي فقير قوقم واي محا إدين جي أنا قلبيت كان جوجا لعجان شقية أن سومالي أنا كبيل أو أنت أنا كبيشو هذا ما هيستأديكتو محا يلا الإيمة وقلبا رنتا أكجرتو قبضا ويارتي قرو كو حاقيسة كلينينكا ساعة الله قلفتا أفر ساعة دي كل جوجتو $50 كبضاني قادتا أنا وحاربتها بيل صدّن معلومات إنها كونتنسيس هذا ناس أو دباتيس بركاس يقولي مسلمين أفكار ديك على قناة سومالي أنا مسلم قالي سانا أنتي مسلم كو أركتين هذا إلى دجال دونتيني قفك مسلم كا وكان إلهي أمدي سألنا بتقليه إلهي وحير أمدي دي إننا بتقليه قد عقارن محا كوجي أفكاري أدين كاجب وكنا بتقلي ويسا كبرناس كلا قد معها عرورت سبيشال نيت كلا دباتية كوا مساكين تقوليها كأدي كلا دباتية inay idin xadaan idinka saas ka dhigayba qayban kana because gabadhaas hadda aniga hadaan aqligan qabi lahaa maalin walba raashina inta meel ugu shubo andii laakistan qaado because way iga goodo waa hayste inkastoo yaraa xitaa adiga waa ka naxariis badnaa waxaan u ogolaaday marka dambe inay teedana qaadato tanna ila cunto ilaahay u naxariisto way dhimatay habeenna anoo qalbiga ugu haya maseexa naxariista ilaaha bixiya sababta idin kugu sheega maaha gabadha maanta inaan ceebeysto magaceedana ma taqaanin iyadana ma taqaano ilaahayna waa ogyahay qalbigayga waxaan rabaa inaan wanaaga isaga dayano inaan dadka masaakiinta noo adeega aan naxariisano aniga gabdhihii ii shaqeyn jiray dambiga kaliya oon gala hadda korna muuqaal dhanaan duuba waa ka qowmamaya waa ku qaylin jiray mararka qaar markaa xanaaq way dhibi jireen waa ku qaylin jiray laakiin weligay ma ceebeysan ul uma qaadan iyagana markhaati ka yihiin adduunka meel alla meesha ka joogaan maanta way markhaati furi doonaan ilaahay ka cabsada ilaahay ummadiisa u nabadgeliya ilma adeerayaalo way salaamayaa mar kale thank you guys